السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركلة iyo bulaale media iyo asxaabtiisii waxaa ma caawa meeshaan noo soo fadhiisano oo kaga hadli rabnaa falanqeyn waxaan leeyahay oo ciyaaraha ku saabsan inkastoo dadku hadhow waxay dhahayaan dadku aantoon bay dheeli jireen maxaa ciyaaro ku saabsan waxaan koosgareeyo maanta oo ku saabsan tahay arrintani waxa maanta dheelayay oo ciyaari dhex martay Zimbabwe iyo Soomaaliya waxaana badisay Zimbabwe waxaa maanta marka dadku fikradooda ka weydiinaya waxa qoosgareeyay in maanta laga badiyo Soomaaliya ama sababay in Soomaaliya laga badiyo hadaan ku soo dhaweeyo walaashin maxaad leedahay maanta aniga waxaan leeyahay ciyaartooydii hore Soomaaliya dheelaysa ayaa maanta dheeshay halka Zimbabwe ay keeneen ciyaartooy cusub yaa markaas waxaad leedahay way dadaaleen laakiin ayaa la soo bedela islaam maadaama waxaan isku wada eegayno oo la kala saari karin way dadaaleen laakiin waa laga badiyay baad leedahay hadan mar labaad iyo mar saddex hadan ku soo laabana Cabdinaasir ciyaartii Soomaaliya iyo Zimbabwe ayaa wada dheelay waxaa laga badiyay Soomaaliya laga badiyay maxaa adigu ka fikrad ahaantaada ka aaminsantahay ciyaartaas maadaama 90ga Soomaaliya weyn ahayd wixii lagu daray in laga badiyay Soomaaliya waxaan leeyahay waxa koosgareey arrinta iyada in Soomaaliya 90gii maartay xilli ciyaaraha loogu talgalay weyn ahaato daqiiqadihii yaraaya lagu daray in laga badiyo demala ciyaaraha ayaa 4.5 Soomaaliya awal hore wax ku qabsan jirtay wax ka maqnaa ciyaarahaas ya 4.5 wala siyaasad ma meesha baloon ma taalidii baloon lafteeda 4.5 noqotay shuu oo maxay ku noqotay dees noo qaxo waxa qoosgareeyay ee isleedahay meeshaas wax ka maqan yihiin madmadow aad aragtay ciyaarta qoosgareey maxaa weey Maria arrintu aad ay ka wadi 4.5 wax loo qaybsadaa Soomaaliya hadda 4.5 ku qaybsanaa 4.5 walaale qaar baa xil loo dhiibaa saasa hebel baa xilki ka maqan Soomaa hebel baa saasa baa la dhahay maxaa adigu isleeyahay waxaas wax noo qeexo waxaas ya 4.5 ka ugu wacnaana dheh horta 4.5 ya 4.5 ay wax nin oo maaragtay ya 4.5 ana ka maqan bulanta ka maqnaan meelaha ninkan hadalka wuxuu dhigayaa sida Soomaaliya ay wax ku qaybsato bulanta lagu ama sida hadda Soomaaliya u dhisan tahay maamul goboleed ahaan ninkan meelaha hadalkiisa waxaan ka fahmay inuu leeyahay meesha waxa qaar Soomaali ka mid ah ka maqnaa quwad iyo tun weyn kula Soomaaliya meelaha sidoo hadalka ula jeedo saasaan u gartay nin wanaagsan waa isaga fikradiisa aad ka hadlaysaa adi ahaanta hadalkiisa meelaha waxaan ka dhuuxay ama aan ka helay fikradda inuu meesha ula jeedo meesha quwad oo loo baahnaa oo wax qaban lahayd oo markaas ayaa booska ka maqnay sida u arko wiilkan 4.5 wuxuu ka goor horaaban ku sheegay aan hawsha ku soo gabagabay nin weyn baa afka qori laga walaal ma Axmed baa ka maqnaa ma Cabdi baa ka maqnaa ma Gurey baa ka maqnaa waxa ka maqnaa muxuu yahay waxa ka maqnaa waxyaalo badan ka maqnaa in yaro xaafada baxash degan Karaan ma xaafada oo yar baa soo qaaday wiilash Karaan حافظ ماشي وابري ما ها وابري ذا سهيري اوكي إيه روك توقتي ما لصاق هذا ويله لا سومالي لا باك مغنيد جيبوتي باك مغنيد تشيكتشيا كم مغنيد كسمايا كم مغنيد بوتلان باك مغنيد كنفر قلبات باك مغنيد وحاك مغنيد تي كلا شبيلا كم مغنيد ما حد ريح هير شبيل هير شبيلا وحاك مغنيد وكله وقوي بر ما هي ماشي كله ماشي قوي بر ما ويبري اوكي هذا سؤالك ويديه تاس انا عبد الناصر هذا فكركيسو راعه وحيلتها عبد الناصر 4.5 ku sheegay lagu soo xilay ciyaaraha waxa la soo xoray dadka oo maxay heeday oo madaxda iyo waxa 17 gobol la soo kala xilaa badan oo maxay heeday qabiilo yar ahaayeen ciyaarta kasiine in hebel amal baa lagu soo wado in hebel amal baa lagu soo wado meesha waxaan aaminsanaa inaan xul la keenin iyo xul lama keenin waa in yaro xaafad ka ciyaarta sidaarkii dad xaafad gaar ka yimid dad badan oo ciyaarta ka silahaayeen oo soo fiican hadan waan soo laabanay idinka hadan walaalkeen mar labaad siiyo adigu fikrad ahaantaada seed u aragtaa maxaa ka aaminsantahay inkastoo maanta wada daawanayay si xunna aad u moral jabtay markii Soomaaliya laga badiyo بسم الله مركب ورئيس وسلام يا دمان ولا لا مسلمين أمة الصوماليين من بيجوجان جارهان عيارتين من قرن كحولك الصومالية ديشي ما أنت كوبكي إن إسرائيل كولد كابكا لا يا بنو خير يسني هاي taas marka laga soo tago anigu ninkan waa ka fikrad duwanahay
sida wax u arkana uma arko kubadda cagtana qof kastaa dareemi karo intaad kubadda experience ama khibrad u leh waa cad iyo madow 90 minutekan macnaha time lagu dari lahaa 90 minute hadii oo qolo gaar la rabo wax gaar la siiyo 90gaas ninkii wax ku keensado ayaa wax leh ninkii ku keensan waayo nasiibkiisa ilaahay waa ku day meel kale ka siiyo sonay 90 ku keensanay 90gan weynka inaan celebration ku jiri horta aniga gamekaas waa daawaday ciyaartooyda qaladka ma lahayn waana la iska badiyaa waana laga badiyay caafiya waa marka aan ka tashanaynaa waxaa soo haray aniga eedaynta gamekaas waxaan saarayaa coachka oo coachkii dhanaa ee qaranka watiba saaraysa adigu waxaan saarayaa waayo oo ku daayay kaasi 97 Zimbabwe 87 Zimbabwe laba gool aa laga rabay inay ku badiso laba gool hadda kadib hadday la timaado ay weyn ahayd 97 anaga weyn ahayn aggregate weynina wadanay gurigoodana hal iyo hal aan wadanay صح coachkaas khibrad la'aanta haysay waxa ahayd 97 adoo gool leh weyn ah difaaca laga rabay difaaca laga rabay macnaha waxaad rabtay sidii Man United inay baska dhigtaan iyo Chelsea oo kale horta inkastoo aniga kubadda Soomaaliya experience u lahayn oo adii maanta wax laga weydiiyay Ingiriiska ama Premier League aan khibrad weyn lahaa hase ahaatee maantay sida kubadda cagta lagu yaqaan ninkii macnaha meesha soo gaaray asoo saas ah waxaa la rabay inuu difaac galo oo 11 qofkiisa uu wato oo gala gadaal soo bugay kubadda derbi tobanka wax xariiqdaan soo bugay sida Chelsea iyo Man United lagu yaqaan oo kale markay 90 iyo 5 gool qofka markuu gool rabo macnaha guusha qaab lagu keenaa jirto صح ma fahmaysaa waa u arkayso goolkii u dambeeyay gadaal hal difaaca joogay 3 nin ama 4 nin waxa loogu yimid hal nin oo difaacida qaranka Soomaaliya waxay ahaataba waan laga badiyay waan u hambalyeynaa dhamaan walaalaheena okay waxaan wax yar su'aal ka weydiiyay adii fikrad ahaanta walaalaha waxay dhaheen inay waxay aaminsan yihiin 4.5 ciyaartaas lagu soo xulay oo dad ciyaartooy Yurub laga keenay meesha la keenay ciyaar oo kale oo in hebel meesha saas lagu soo galiyay oo dadkii Soomaaliya u dheeli jiray ee matali jiray ee u dhiiri jiray ee gobolada u dheeli jiray ee koobabka u qaaday inay dadka ka maqnaayeen yaa la isla dhexmaraya maxaad ka aaminsan tahay marka adigu horta sida runta ah 30 sano iyo wax ku dhow ay noo dheelahayeen nimankan hadda Soomaaliya joogo weli meesha maanta gaarinayna gaarin sida markii laga soo tago horta barnaamijkan 4.5 ka nimanka waaweyn ee macnaha joogo madaxtooyada ku kala qaraabtay macnaha صح anaga kuma jirno ciyaalka xaafadda nahay 4.5 banaanka ka nahay kubaddana horta markii runta laga sheego 30 sano meesha ayna geeyeen nimanka saaxiibadeena hadda Soomaaliya joogo ama dhalinyarada Soomaaliya laga soo xuli jiray nimanka maanta meesha ayna geeyeen nimankan qurbaha laga keenay inta badan nimanka geeyeen waxay ahaataba aniga waxaan aaminsanahay kuwa Soomaaliya joogo inay dhiirigeliyo oo la taakuleeyo oo la qalabeeyo insha Allah hadda wixii ka dambeeyana barnaamijkan marka usoo laabto 4.5 kan aniga horta ma fahansin mana taageersan Cabdinaasirna si wuxuu arkaa ana si gaar ah wuxuu arkay inkastoo hadda xitaa wada weyn dhalinyaradan dheelahay liigan meesha ka wada yimaadeen on qaran Soomaaliyeed libisana arkay ana qarnimadeeda ku darsado okay kuwaasina waxay ahaayeen walaalahay oo maanta aan ka wada doodaynay ciyaaraha iyo sida ay u arkaan iyo fikrad ahaantooda waa anagoo war jiraaba cakaaro imaan idinkuna asxaabta waxaad commentiga kaga soo dhiibanaysiin ciyaartaas maanta iyo waxa 4.5 ka la sheegay iyo hadduu sax yahay iyo hadduu sax ahaynba meeshaas dad ka soo dhiibanaysiin waa anagoo isku duuban oo idin leeyahay markale Bulaale Media subscribe kulanti dambe oo xiiso leh assalaamu calaykum wa calaykum warahmatullahi wabarakatuh